haatanna daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij kale oo ku saabsan mar aan waraysi la yeeshay nabadoon ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayagoo ku dhaqan gobolkan north america. waxaana nabadoonkaasi uu yidhi waxaanu qeyb lixaadle ka qaadan doonaa in aanu isku soo habeeno barnaamij ku saabsan sidii soomaaliya wax looga qaban lahaa, gaar ahaan gobolada somalilan uu markaasi u booqasho ku joogay. waa kan barnaamijkii oo isku duuban, daawadayaal kusoo dhawaada. xaashi nuurow oo isagu ah nin ka mid ah ururka salaadiinta soomaaliyeed ee ayagu isu taagay bal siday u badbaadin lahaayeen dadka soomaalida ee soomaaliya oo dhibaatadu ku habsatay ayaan maanta stuudiyaha nagu soo booqday. xaashi nuurow waxa uu ka hadli doonaa siyaabaha ugu habboon ee laysugu keeni lahaa isimada soomaaliyeed meel ay joogaanba. haddaba xaashi nuurow, waxaan ku weydiin lahaa bal waxaad ka warantaa guud ahaan qabanqaabada aada haysaan iyo waxyaabaha aada isleedahay maanta way ku habboon tahay inaad dadka soomaalida gaar ahaan diaasbarada dibadda aada u gudbiso. aada iyo aada umahadsan tahay. arrinta meeshaan waxaa weeye inaan u caddeeyo dadka diaasbarada dibadda jooga, khaasatan dadkan minnesota degan oo walaalaha ah. annagu haddii ahayd siyaasiyiinta bahalka la yidhaahdo haddaan nahay odayaalkii soomaaliyeed, anugu salaadiinta kamid maahay laakiin oda soomaaliyeed aan ahay. waxaan isku taxallujiyey markii aan arkay siyaasada soomaaliyeed sida u socoto iyo meelaha la marsanayo iyo dadka gacanta ku haya oo hadda soomaaliba aysan ahaynba ka baxda gacanteeda, sidii soomaali gacanteeda loogu soo celi lahay siyaasada soomaaliyeed, arrinta soomaaliyeed. sidaasaan ka fikirnay anigii salaadiin soomaaliyeed. muqdishoan tegay marna waan ka imid. marka waxaan ku tashanay in laysu keeno salaadiintii soomaaliyeed maadaama arrintii ay calowday oo wixii ka horreeyey oo lasoo dhisay iyo wixii ilaa dowladda maxamed siyaad wixii allow naxariistay wixii ka dambeeyey oo dhan inay noqdeen waxaan soomaali kala geeyay wax isu keena aysan noqonin. waxaan isku daynay oon ku tashanay inaan isu keeno salaadiinta soomaaliyeed si ay muxuu ahaaye salaadiinta u tashato oo ay u jeediyaan soomaaliya waa nabad ay yidhaahdiin oo soomaalida markaas ay nabad noqoto. hadday salaadiintu heshiiyaan oo ayagu ay isaafi kartaan oo ay soomaali u jeediyaan dacwad u jeediya oo soomaali waa nabaday, soomaali waa heshiinaysaa, nabad halkaasina nabad ku qaada. soomaali ma dagaalsana hadda, laakiin haddana heshiis maahan. sababta waxaa weeye 90kii iyo 1giisay u kala tagtay, cid isu keento heshiiya tiri oo isu keenta ma jirto. marka sidaas darteeda waxaan garanay maanta inay xalku ku jiro, lala joogo waqtigii salaadiinta dadkii la doortay oo duubabka la dhihi jiro dadku soo doorteen oo dadka madaxda ka ahaa oo weligood ku dhex jiray oo heshiisiin jiray, wax u kala qaadi jiray oo docoda u kala qaadi jiray oo heshiisiin jiray, in maanta loo noqdo oo muxuu ahay iyagii laysu keeno oo ayagu markaa ay soomaali la hadlaan oo soomaali waa nabada yidhaahdiin. marka wixii ka dambeeya in muxuu ahaye la helo dad soomaaliyeed oo meel kasoo wada jeeda oo muxuu ahaye dantooda usoo wada jeeda. soomaaliya waxaan kaloo idan xusuusinayaa dadka dowladaha adduunku waa kugu soo gurman karaan, sida haddaba cunto waa kusii karaan, laakiin kugu soo gurman maayaan inay dowlad kuu dhisaan. dowlad soomaaliyeed oo lagu dego oo sidii dowladihii horeo baaba-adoo kale sharafta laheed oo kale, dowladda waqtigii hore oo sharafta laheed oo kale soo noqota, adinkaa samay kartaan. wadankiina waxa burburiya waa adinka, maahan ajnabi maahan, adinkaa burbur. haddaad meel kasoo wada jeedaan adinku ajnabi idinma soo dhex galeen. laakiin markii laydin kala geeyey wuxuu yahay nidaamka muxuu ahaye isticmaarka wuxuu yahay qayb iyo xukun. markii nala qaybiyey oo muxuu ahaye dhowr dowlood nala ka dhigay, markaas weye marka nala xukumay oo muqdisho lasoo fariistay oo lasoo degay. waxaad ogsoon tihiin in ayaan dhexdaasa mar dhow hadda oo 2 bilood laga joogo in ninka hadda united nation soo dirtay mahiga inuu soomaali isugu yeero uu yiri dadka dowlad goboleedka soomaaliyeed rabaa inay yimaadiin. 15 dowlad goboleedaa timid. waxa la ogyahana waxaa ka jirta puntland iyo somaliland, puntland iyo waxaa ka jira iyo galmudug. somaliland mar hore waa dowladay sheegteen, dowladeena yihiin oo halkaasay joogaanba, iyo burankaba kuma jiraan. marka waxa weeye 15 dowlad goboleed laba ka jirta iyo xibin iyo xeeb dowlad la yira ayana sheegteen. inta kale 12 kale wax jira maahan. meelaha ay sheeganayaan shabaab haystaba maba joogaan iyagu. sidaasaa naloo kala qaaday markii aan iskhilaafnay oo annagu aan isnacnay oo aan isu urnay
oo muxuu ahay sharaftanadii iyo xoogganay kala tegay sidaasaa naloo xukumay waana la kala waday sidaasaa nala keeyey si laysugu soo noqdo waxa weeye in salaadiintii laysu keeno salaadiintii dadka awal hore u tali jiray ay taladii ay wax ka yeeshaan salaada soomaaliya la nabdaadiyo markaas waxaan u yeelna markaas dadka soomaaliyeed dibadda jooga inaan usoo jeedino kharajkii salaadiinta laysugu keeni lahay in dadka diasporada degan ay bixiyaan si aanaan ugu baahan inaan United Nation iyo NGO-yo iyaanaan wax u weydiin sababtoo haddaad wax weydiiso dad ajnabi wax weydiiso ayagaa ku maamulaya ku xukumaya laakiin waxaan rabnaa tano inay ahaato salaadiintii Soomaaliyeed iyo dadkeedii oo gartay wax dhibaatada maanta jirta oo kharashka salaadiintii lagu fariisi lahay ayagu naftooda ka soo qaada oo walaalood u soo qaada intaas way intaan galabta meesha aan ugu imid inaan walaalahay u soo jeediyo khaasan dadka nala soo diray waxa ugu xoog badan aan isleeyahay waana dadka ugu sharaf badan waxyaabo isaga jireen dadkeena Minnesota u badan hadda anigu arkay Minnesota waxba deganayo registeran deganahay marka laakiin waxyaabo waa iska jiraan xubno waa iska jiraan sababtu waxa weeye dadku walaalaha haddii ay kala jeestaan waxa soo dhexgelaya cadow waa soo dhexgelaya marka si aan cadow idin soo dhexgelin walaalayaal waa inaad mid noqotaan waa inaad muxuu ahay adinku aad saamintaan waa inaad walaal noqotaan waa inaad tashataan waa inaad maanta waxa jooga ka isaga timaadaan haddaadnan adinku isu imaanin oo aadnan Soomaali aada mid noqonin meel kastoo joogtaan waxaad ogaataan sida maanta laydin qeybay oo laydin xukumay laydin xukumaya wax Soomaaliyana jirmayaan wax Soomaaliya jirmayaan si Soomaali ay u soo noqoto waa inaan anagu isu nimaadnaa anagu inaan heshiino weeye meel aan ka soo wada jeesanaa dantanada aan meel uga soo annagana aan ka tashanaa dantanada aanan u talinaa dadkanaga iyo dalkanaga caasho waxaa kaloo aan rabaa inaan ku weydiiyo ogaanta gobolka Minnesota ayaa timid Soomaali badan ayaa ku dhaqan wadanka Canada Ingiriiska iyo Yurub inteeda kaleba iyo hadday noqon leed Carabahaba ma adiga kaliya ayaa u xil saaran mise cid kale oo ayagu si gaara loogu diray ayaa jira meelahaas ay Soomaalidu ku nooshahay maya aniga kaliya la soo xil saaray muxuu ahaayay lixdaas salaadiintaas ana muxuu ahaayay invoice muxuu ahaayay official representative aniga oo dibadda anigana la soo diray cid kale qof kasta hadda dadkan Soomaaliya oo dhan kulligood way isxilqaabeen way leeyihiin arintaas waa arin socota laakiin hawshaas qof soo horta una socota hadda aniga ka jira marka ma la xiriirtay meelaha aan kuu sheegay Ingiriiska iyo Canada iyo meelahaasi kulli waa la xiriiray Ingiriiska waa la xiriiray Canada waa la xiriiray Virginia waa la xiriiro shiran ku qabta kanoo kaleeta waxay yiraahdeen hadda waxaan qabanqaabinaa dad isku mid guddi isku mid inaan qabanqaabino saas iga ballan qaadeen marka meel kastoo waa la hadlay meediyadana waa kala hadlay intii aan soo gaarana waa la hadlay kulligood marka nin la arkaa niyad fiican ay kulligood wada lahaayeen laakiin waxa ka maqan kaliya actionkii la isugu imaan lahaa oo meel kaliya ra'yi looga soo wada jeesanay sababtoo de waqtiin dadka waa lagu dhex jiraa dad badan ku dhex jira oo raalli ka ahayn unity Soomaaliya aan mid ka ahayn marka haddii aan sidaa ku sii jirno waad ogsoontihiin ciidamada waxa ku soo duulay Ethiopia 66 ku soo duushay ka soo duushay waxa ka dambeeyay Uganda ayaa reebtay haddana meesha lagu reebay hadda waxa ku soo duulaysa Kenya ku soo duushay marka arrimahaas oo dhan waxa weeye oo lagu soo duulaya mabdoodu waxa weeye waxay la mid tahay duulaankii muxuu ahaayay shabaab yaa lala dagaalamaya yaa wadanka ay ku imaanaysaa marka taas waxay la mid tahay shabaab ay lala dagaalamaya waxay la mid tahay Saddam Hussein lala dagaalamaya iyo Gaddafi lala dagaalamaya ay la mid tahay marka waxa la doonayaa shabaab in lagu soo galo wadanku saas ku baabao kheyraadka wadanka ku jirana la qaato yaa la doonayaa nimankan aad arkaysaan hadda wadanka waa ku soo duulaan iyo kuwii horena kulligood waa laga dambeeyaa kor laga xukumaa waxa weeye waxa arigan muxuu ahaayay ma rabo inaan siyaasad galo ma doonayo laakiin qof walba waa fahmaysa arintu sida ay u socoto waxaan doonayaa Soomaaliya inaad walaal noqotaan unit inaad noqotaan si muxuu ahaayay aad u soo xishantaan sharaftiina iyo dadahnimadiina waad ogsoontii meelaha kala daadsantihiin dumarkiini gabdhihiini ilmihiini odayaalkiini xariyaha ay ku jiraan lagu garaacay waad ogsoontihiin jidka ay ku baqtinayaan waxaan rajaynayaa in muxuu ahaayay ay ka baxdo
qabaa'ilka qabiilka waxa la yidhaha oo xiqdiga oo xasadka oo xumaanta oo na galay oo qofba qof marka ooto kasii jeesanayo waxaas weeye waxaana kusoo dhex galay dadaanaan af aqoon oonaan aqoonin oonaan isku diinayn oonaan isku dadhayn maanta waddanka aniga xukumaya intaas qiiradaha in ka qabato waxaan idinka rajeynayaa waxaas aan idin soo jeedinayo in muxuu ahaaye ay dhegihiina galaan waxna aad ka qaadataan waa idin salaamay anoo idin muxuu ahay ducaynaya idinna baarakeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu